gabariyada subxaano mara shabeelle xirato mara qafiifa huwato magacaaga ii sheeg magacaygu waa sharaf xaaji weeyaan aqalada xariirta dhinac baan ka jooga alla yaa u sheega tinta u shanleeya nahooy samsamey sabaax nuurey adoo kilkiliyo kalluun badaney adoo xajka jira xasuus badaney saaxiibta cashaq baad dilay ugu dambaystina aniya geeluba ugu bannaan bleeya nahooy samsamey markaa yaraa waxaa ka fikri jiray anigoo noqdo waxaa rajayn jiray inaan noqdo madaxweynaha Soomaaliya ma dhima doontaa ma noolaan doontaa inta waa ku fikiraa nolosheeda liibi waxaa ka dhacay dhibaato ka dhacday waxaa soo gashay ayagii waxaa soo isdagaaleen naata isdagaaleen kabacdi markuu ka carashada badatay booliiska wuxuu bilaabay waxyaabo dil iyo dhac iyo waxyaabo bilaabay way garaaceen biray ugu dhufteen waxay ugu subiyeen isla markii waxaan galay isbitaal isla markii waxaan galay koomaan galay aniga meeshaan dhigi kala tageen تلفون يقول حري السؤال كمدة جارس وحن كجري أنت اللي سعسين أنت حلي برا أنت صوت بالشناد أيضا يصير دمانة سو عشوشة أي ماذا أنا شان كجري شوشة ارتوى أنا الأضاق واي وأنا اللي بعتبرن وأنا كسبنا بتا قحوتي ارترفجي أم قحوتي qofka aan lahayn wadan sida qofka wadankiisa dhibka jiro hooyo way u welwelsan tahay xaaladeyda hooyo waxaan jeclaan inaan ku arko inaan soo wato aan geysto wadamada Yurub ka mid ah بدنا نبلش أول شيء بالوزن اللي مسموح فيه لكل شخص منكم كل شخص مسموح له 15 كيلو فقط شخص العائلة ممنوع يجمع markay baxaan saxaabtay waxa dareema cidlo runtii bixitaankiisna waa ku farhay انتوا رح تطلعوا بجروب واحد تونس فرانكفورت اوسلو هارستاد نارفيك بكره الساعة 7 الصبح على 7 صباحا كلكم تتجمعوا على اليو ان اتش سي ار على المين جيت تطلعوا بالباص تروحوا على تونس saakan waxa arkay saaxiibkay oo shusha dadkii ugu soo dhaweeyay kamid ah oo qalbigii dajiyay markaas ay waana jiray aasaa ka baxay إن شاء الله مسافرك وأسوي من إن شاء الله qodobada wararkaan idin ku hayana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya
iyo ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. dagaal wax shay yar maahan, shay sahlan maahan. dagaalku leeyahay hadda intaa ku arkay leeyahay ugu filan aniga markaan qurbaha imaado kaliya intaa asaan arkay ugu filnaatay. Soomaaliya waxa uu soo carar aan qaba maanta ilaa hadda sakana aniga kuma laawi karo Soomaaliya. ay ka mid noqdaan kuwa AMISOM ee xilligan howlgallada ka wada dalka Soomaaliya. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu la kulmay madax dhaqameedka gobolka Gabiley, waxaana inta badan kulankaasi oo madax kale ay ka qayb galeen looga hadlayay sidii gebi ahaanba looga hortagi lahaa xiisado ka dhasha dilkii ka dhacay deegaanka Samaal ee 3 qof lagu dilay. naafada ku dhaqan deegaanka Puntland oo in badan ay la soo gudboonaatay dhibaatooyin dhinaca nolosha ayaa iyana markii ugu horeysay waxa ay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin si ay ugu doodaan xuquuqdooda gaarka ah. xuska maalinta qowmiyadaha shucuubta dalka Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu soo bandhigay munaasabadaasi ciyaaraha kala duwan ee muujinaya isdhexgalka shucuubta kala duwan ee dalkaas. madaxweynaha waddanka Syria Bashar al-Assad ayaa iska fogeeyay in uu wax lug ah ku leeyahay dhowrka kun ee qof ee lagu dilay dalkaasi Syria 9 bilood ee kacdoonnada dhanka dadweynaha ay dalkaasi ka soconayeen.